wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa maanta tababaro furtay maamulayaasha kastamada iyo sidoo kale isduwayaasha iyo xisaabiyaasha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer waxaana tababarkan inta uu socdo laga hadli doonaa hab nidaamyeedka maaliyadda iyo sidoo kale xisaabaadka iyadoo uu socon doono muddo 4 cisho waxaana tababarkan iska kaashaday wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo sidoo kale Banka Adduunka Salebaan Cismaan Daahir oo ka socday waaxda nidaamyada xogaha maaliyadda ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa faahfaahiyay isla markaana ku dheeraaday qorshaha tababarkani sida halkan ka muuqata waxa fulinaya oo tababarkan idin siin doona waaxda la yiraahdo IFMIS ama Somaliland Financial Management Information System waxa fudeydiyay oo inaga caawiyay World Bank inaynu gaarsiino dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka systemkan waa system automatic oo international adduunka oo dhan isticmaalo magaca caanka ee loo yaqaanaana waa IFMIS ama Integrated Financial Management Information System waa system faa'iidooyin badan haddii aynu siduu yahay u wada isticmaalo aynu ka helayno qaran ahaan iyo ashqaas ahaanba aynu ka helayno faa'iidooyin fara badan waayo systemkan waxa lacag badan ku bixiyay oo inagala shaqeeyay Banka Adduunka qaabka aynu systemkan u isticmaalaa waxa uu inaga siinayaa image nooca aynu nahay dadkii donoriska ahaa maalgashadayaashii ayuu inaga siin doonaa image fiican waayo waxa la eegayaa sidaynu u fulinay habkan guud ahaan systemka aynu isticmaalaynaa waa systemka noocaasa alxamdulillah inaga wadankeena meel fiican buu marayaa riboodada maaliyadda ama financial reportska xafiiska xisaabiyaha guud oo daabaco waxa laga daabacayaa systemka oo imika laga daabacaa dhammaan dalkeena oo dhan baa uu ka hirgalay laakiin wuxuu maray process kala duwan markii hore Hargeysa laga bilaabay oo caasimadii Somaliland ah dhammaan MDA-yadii iyo wasaaradihii Hargeysa uu wada gaadhay wixii goboladaana waxa sameyn jiray markii hore xisaabtooda waxa laga gelin jiray xafiiska xisaabiyaha guud oo sectionka controlka ayaa gelin jiray wixii dambana waa la daadajiyay oo waxa gelinayay xisaabaadka gobolka maamulaha kastamada gobolka Togdheer Salebaan Maxamed iyo sidoo kale Cabdi Khaaliq oo ka socday mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna bogaadiyay isla markaana sharaxaad ka bixiyay ujeedada tababarkani wuxuu ka mid yahay seminaaradii inoo socday ay waday wasaaradda horumarinta maaliyadda si aad ula socotaan bariyahan dambe waxay waday reform lagu hormarinayo qaab xisaabeedka iyo dhaqaalaha seminaarkanuna kaas buu ka mid yahay inta waxay noo bilaabmi doonaa training socon doona muddo 4 cisho ah kaas oo lagu baran doono hab nidaamyeedka lagu fulinayo maaliyadda iyo xisaabaadka marka maanta waxa number 1 lagu talagalay inuu ku dhaco maamulayaasha iyo isduwayaasha gobolka Togdheer gabagabadii waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo waxaana uu soo dhaweeyay tababarkan kor loogu qaadayo isla markaana lagu hagaajinayo nidaamyada xisaabaadka iyo dhaqaalaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer marlabaadka waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda ee soo qaban qaabisay barnaamijkan casriga ah ee elektarooniga oo runtii la oran karo waqtigiisa ayuu ku soo beegmaysan horeyba u sheegay waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan qaabka casriga ah ee runtii ka fudud qaabkii aynu maareyn jirnay ama loo maareyn jiray maamulka iyo maareyntiisii hore ay ahayd maxay tahay qaababkii aynu u dalban jirnay foojarrada inuu yahay qaab ka casriyeysan
oo ka fudud oo runtii maxay ahayd wax badan inoo sakhiraya. tababarkan ku saabsan hab nidaameedka maaliyadda iyo sidoo kale xisaabaadka ayaa guud ahaanba ka furmay gobolada Somaliland iyadoo lagu tayeyn doono isla markaana lagu hagaajin doono hab nidaameedka maaliyadda iyo sidoo kale xisaabaadka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland ka wado guud ahaan dalka.